stuudiyaha Universal ee magaalada Muqdisho isna iminka ku sugan xogayaha guud ee arrimaha siyaasadda golaha guurtida ee Xamar iyo Xamardaye oo la yiraahdo Axmed Xasan Kuulow kusoo dhawow barnaamijka odayaashii deegaanka tihiin ma ka warqabtaan guddigan la magacaabay mise la idinka tala galiyay maya nagalama wax nagala wada hadlay ma jiro raadiyan ka maqalnay waxaana aadan ugu xunahay dawladda oo federaal weeye federaalka waxa weeye aasaaskiisa qolo kasta deegaankooda ayaka inay ka taliyaan dhibkii dagaaladii iyo dhibaatadii cadaalad darradii in laga baxay ahayd haddase waxay ila muuqataa inaan laga bixin oo weli oo si xun loo sii noqdo oo u socoto shaqada ma isku daydeen in aad la hadashaan maamulka iyo mas-uuliyiinta maxaad se kala kulanteen haddii ayba dhacday inaad la kulanteen ninku arkayo waxaa leeyahay nin aragtida oo rorogaaga arki waayo jiifkaaga arki maayo wax badan baan u sheegnay raadiyaashaan ka hadalnay idaacadaan ka hadalnay joornaalkaan ku qornay dadka deegaanka waxaa loo galay sida dad aan jirin oo kale deegaanka taariikh uu leeyahay dadka waa laba nooc dad waxa waaye rajamada kale ayay ka yimideen way soo degeen dadna asal ahaan weeye dadkii wadanka deganay weeye dadka wadanka degan lagama tixgelinin mana lala hadlen xaqoodana lama siinin dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka mid xaqooda laga siiyey ma jiro iyo dowladda oo komisaariyaasha oo degmooyinka xaqoodoo dhan waa la dafiray marka taasu anaga waan ka soo horjeednaa waxaan ogolaan karna maahan wadanka federaal weeye federaalka qolo kasta waa inay xaqeeda heshaan wadanka wuxuu u baahan yahay nabadgelyo hore u marin ay u baahan yahay laakiin waxaan arkaynaa in oo mataqaanaa rag afaar qabiil lagu wada ambo jeebka lagu watay rag in la keenayo ay ninba ku wax uu doono uu sameeyayo taasoo waxaan oranaa cadaalad maahan cadaalad baan doonaynaa cadaalad oo Soomaalinimo ah nin kasta qaybtiisa uu helo deegaanada la dhisay oo dawlad goboleedka lagu dhisay anaku waxba kama helin mana u doonanin gobolkayna ayaan leenahay anaka waxaan doonaynaa gobolkayna inaan anaka dhisano guurtidayno inay madax ka noqoto dadkeena inuu sheerkiisa oo xaq uu leeyahay oo ka helo wadanka golaha guurtida oo aad idinku ku jirtaan oo aad madaxda ka tihiin haddii maamulka gobolka aysan la hadlin yaa kale oo ay tahay in aad kala hadashaan arrinkan oo dowladda qusaysa haddii ay wasaaradda arrimaha gudaha ahaan lahayd ama madaxtooyada bay ahaan lahayd anaga waxaan u sheegaynaa madaxweynaha waan u sheegaynaa prime ministerka waan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa baarlamaanka waxaan leenahay haqa iska jira haddaad haqa ka raaci weysaan dhibka yimaado idinka wadanka mas-uulka ah mas-uuliyadiina waa inaad alaalisiin dadweynahana mas-uulaad ka tihiin waxaan doonaynaa si cadaalada oo nidaamka federaalka u qaba inaad samaysaan qolooshinka ku helay deegaanadooda lagu doortay oo madax ka noqday ma ahan gobolka Xamar in loo magacaabo haddana xaqdarro weeye yaa kale oo aad isku daydaan inaad kala hadashaan arrinkan gaar ahaan golaha deegaanka oo la filayo in qaab doorashaha uu noqon doono anagu hadda wadalkayna anaga hadda uu kow yahay marar horan waa hadalnay wax meesha ka soo qaada ma arkin hadda waxaan u sheegaynaa anaga dowladda waa tii ugu dambeysay aan u sheegayno waxaan leenahay haqa hala fiiriyo gobolka Banaadir talyaaniga wuxuu yimid 1988 1910 geography uu sameeyey dad deegaan oo ku qoranaa jiro aan laga taxgirinin waxaan ka rabnaa marka inay noo sheegaan dadkaas hadday yihiin dad aan muwaadin ahayn oo la haqirayo hanoo caddeeyeen haddayna ahaynna haqa ay leeyihiin waa dibadda in lasoo dhigo wey ayaka doortaan guddina looma magacaabi karo golaha golo looma magacaabi karo Xamar oo hadda soo dhiso qalad wey haddii ay taasi dhici weyso
ilaa iyo hadda sida ay wax ku socdaan waa magacaabis golihiinu maxaa tallaabaa la gudboon inuu qaado tallaabadayna anaku dacwadayna waa sii wadi doonaa iyo qayladeenna waan hadlaynaa ilaa dad noolaan nahay xaqaynana waa raasayna si alla sidaan ku helno axmed xasan kuulow xogayaha guud ee arrimaha siyaasadda golaha guurtida xamar iyo xamar daye oo stuudiyaha universal ee magaalada muqdisho si toos ah ugu sugan ayuu ahaa aada u mahadsan tahay